maanta inay tahay maalin jimco ah oo fasax inay tahay ama noo wada tahay oo dadku meelo badan ay ka balansanaayeen inaa waqtigiina noo soo hortiin oo noo timaadiin aada ugu faraxsannahay si aan usoo koobno marka iskuolka iyo warbixintiisa. Iskuolka Royal Muslim Primary School horta wuxuu ka furan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xaruntiisa koowaad halkaas ayay ku taallaa, wuxuuna ka kooban yahay dhowr qaybood oo kala duwan oo ay kala yihiin. Qaybta koowaad waxa waaye qaybta primary-ga oo caruurta 4 sano laga bilaabay ilaa iyo wixii ka sarreeya ah, oo sida xagga u naqaano 3 qaybood ayuu ka kooban yahay primary level-ka ama dugsiga hoose. Qaybta hoose ee ilmaha intaysan soo gaarinin galaaska koowaad ee class 1-ka oo ay u naqaano pre-primary ama pre-schooling-ka oo ka kooban baby classka oo ilmaha aada ku yaryara, oo ay ku xigta nursery-ga iyo pre-unit-ka, 3daas class oo ka hooseeya galaaska koowaad. Then waxaa inoo xiga lower classeska qaybta la yiraahdo ama dugsiga hoose oo ka bilowda class 1 ilaa iyo class 4, class 1 iyo 2 iyo 3. kadibna waxaa inoo xiga laga bilaabo 4 ilaa iyo class 8 oo ah upper level-ka ama dugsiga dhexe sida u naqaan halkan. kadib ardayga markuu halkaas gaaro class 8-ka wuxuu sameeyaa imtixaan guud oo la yiraahdo Kenya National Examination Council, KCPE, Kenya Certificate of Primary Education. kadib ardaygu wuxuu bilaabaa high school-ka ama dugsiga sare oo 4 sano uu ku qaata. marka iskuolka Royal wuxuu ka kooban yahay class 1 ilaa iyo 8 oo ah primary-ga. then xarunteena kaloo Nairobi waxay leedahay class 1 ilaa iyo class 4 oo qaybta dugsiga sare form 1 ilaa form 4. iskuolku sidoo kale wuxuu leeyahay qayb diini ah sida ka muuqata ereyga muslim. inta badan Muqdisho waxaan lahahay muslim maxaa ugu dartay Royal Primary School maxaa u dhiibaysaa? su-aashaas aan rabnaa maanta marka inaan ka jawaabno oo munaasabada ugu habbooneed oo looga jawaabi lahaa. Royal Muslim Primary, ereyga muslim waxaa ugu darna waxa waaye magaalada Nairobi waxaa ku nool dad iyo kala duwan iyo diimo kala duwan ayaa laga practice garaya. sidaa darteed si iskuulaadka kale ee aan islaamka ahayn aan uga socno ayuu magacaas u qaatay Royal Muslim Primary School. taasoo macnaheedu yahay iskuolku inuusan ahayn iskuol maadooyinka qur-aanka iyo diiniga aysan ka marnayn. marka maadaama aan go-aansanay inaan xarun uga sameyno magaalada Muqdisho, magacii sidiisa in usoo qaadno waay. iskuolku maaha iskuol cusub oo Muqdisho lagu aasaasayo, waa iskuol xarun looga sameynayo. marka xarun sameynaysidna ma bedeli kartid magacii hooyada, ma la bedeli karo, waa inaad sidiisa usoo qaadata. horta sidaas ayaa u wadanaa Royal Muslim Primary School. iskuolku marka wuxuu leeyahay qayb qur-aana iyo islamic subjectska, maadooyinka islaamka oo tarbiyada sida fiqiga iyo siirada iyo carabiga. maadaama ilmaha naloo keenaya aada u yaryar yihiin, waa inaan u sameynaa qayb looga tababar qaybta diinta oo aysan qaadanin maadooyinkii o keliya. so waxaan leenahay qur-aanka, waxaa kaloo leenahay maadooyinkii tarbiyada ayaa barnaa ilmaha. iskuolku wuxuu kamid yahay iskuulaadka hoostaga wasaaradda waxbarashada ee Kenya, waxayna aadayna u adagtaa runtii in wasaaraddaas ay ku aqoonsato. process badan ayay qaadanaysaa in lagu aqoonsado. macnaha aqoonsigaasna wuxuu ka turjumayaa standardkii iyo wixii lagaa rabay oo iskuol laga rabay ayaa buuxisay ayay ka turjumaysaa. iskuolka sidaan sheegnay laba department ayuu ka kooban yahay. qaybtaan cusub oo Muqdisho aan ka furayno, qaybtii Nairobi wax yar uga yara duwantahay. qaybtii primary-ga ahayd waxaan ku darnay Muqdisho qayb language center la dhaho oo lagu baranayo luqadaha. khaasatan waxaan keenay Englishka laakiin magaalada meelo badan uu ka furan yahay. annaga waxyaabaha uga duwannahay magaalada English ka furan waxa waaye waxaan keenay imtixaanaadka caalamiga ee TOEFL-ka iyo IELTS. TOEFL iyo IELTS waxyaabaha ay muhiimka ku yihiin waxa waaye arday kasta oo ka baxa dugsiga sare ee raba inuu aado jaamacad caalami ah, ardaygaasoo ka imaanaya wadamada aan Englishka looga hadlin ee Soomaaliya kamid tahay, waxaa laazim ku ah inuu soo qaato imtixaanka la yiraahdo TOEFL. hadduusan TOEFL helinina waa inuu qaataa IELTS. TOEFL 10,000 oo college oo adduunka ku taala ayaa aqoonsan, 120 wadan ayaana sidoo kale laga aqoonsan yahay.
120kaas waddan waxaa ka mid ah wadamada USA, UK, Australia iyo Canada. sidoo kale qaybta primaryga academic subjectska maadooyinka qur-aanka markii tarbiyada laga soo tago academic subjectska waxaan bixinaa maadooyinka Englishka iyo Kiswahiliga, xisaabta, socialka iyo science iyo IRE oo ah Islamic Religion of Education iyo maadada Soomaaliga waa qaybteena Muqdisho. waxaa noo dheeriya markii canuga yarka ama dadka ay wax baranayaan weliba markay yar yihiin waxaa laga maarmaan inay helaan exercises. so waxaa kamid ah waxbarasho keliya maahan inuu canugu qaadanayo, laakiin qayb waxaa kamid ah PE la dhaho ama physical education oo macnaheedu yahay ilmuhu inay ciyaaraan oo section dhan waxaa jirta ama isbuuci mar kamida oo ay qaadanayaan xiisada ciyaarta yani ama banooni ha dheelaan ama mashiino loo keena ku ciyaaraan si ay maskaxdooda u furfurmato. programmada kale iskuulka laga helayo waxaa kamid ah food program uu leeyahay, yani cunto gudahiisa lagu karinayo leeyahay. wuxuu kaloo leeyahay basaska ilmaha guryaha kasoo qaadaya kuna celinayo. sababta loo sameeyana waxa waaye iskuulka ilmuhu waxay soo galayaan subaxi waxayna ku jirayaan ilaa iyo galabkii 10 saac ay ku jirayaan. sababta intaas ay ku jirayaan oo loo ogoleen inay baxaan waxa waaye in aysan markii ay banaanka u baxaan oo kale ama break loo fasaxo ama quraaca qado wixii loo fasaxay aysan dhibaato banaanka kula dhicinin ama gaari socdo. waa midda koowaad. midda labaad waxa waaye inuusan time dominin oo controlka dhan ilmaha ay hayaan iskuulka. so ilmuhu markii quraac la gaaro galaasyadu kasoo baxayaan, iskuulka gudihiisa ku cunayaan, galaasyadoodii ku noqonayaan, dan way kasoo baxayaan, qaday usoo baxayaan, salaada duurka la tujinaya, meelihii weysadoo dhan waa loo diyaariy, kadibna waxay ku noqonayaan galaasyadooda. iskuulku wuxuu leeyahay aragtida aan leenahay iyo goolka aan hiigsanayna waxa waaye hadduu ilaah yiraahdo inaan noqono iskuul soo saara ubad taya leh Soomaaliya guud ahaan, keliya Muqdisho maaha. waxaan rajaynaynaa inaan Soomaaliya dhan ku faafin. waxyaabaha aan rabnay inaan ku gaarno waxaa kamid a marka koowaad inaan abuurno meel degan. waa sababta meeshaan u dooranay oo magaalada aanaan gudaheediiyo buurka suuqyada aan u tegin oo meeshaan u nimid qayb meel degan oo haddana ammaankeeda la sugay. waxaan kala jeedaa gudaheenan iskuulka dhammaantiis waxaa ku xiran CCTV security cameras aa ku xiran. yacni galaas kaste waxaa ku xiran camera, qol kasta iyo xafiis kasta waxaa ku xiran kaamerooyin. sababa loogu xirana ma aha wax kale, waxa weeyaan in lala socdo dhaqdhaqaaqa ardayga, hadday noqon lahayd akhlaaqdiisa, hadday noqon lahayd ardayga macalinka wax baraya. waxaan ognahay inta badan macalimiinta qaar inay galaasyada galaan oo ay teleefanadooda isticmaalaan intii cashar ay bixin lahaayeen. waxyaabahaas oo dhan waxaa ka hortegi doona kaamerooyinka lagu xiray. incase hadday dhacdo inuu macalin cashirkii bixin waayo ama qaladaad uu sameeyo, waxaa loo hayaa caddayn. so iskuulka oo dhan haddaa fiirisiin waxaa ku xiran security cameras. waxyaabaha aan rabnay inaan dhisno waxaa kamid a confidencega ardayga iyo kalsoonida uu qabo markuu iskuulkiisa dhameeyo. yacni markaa iskuul ka dhamaysid meeshaan oo dugsi sare dhamaysid ama primary aad dhamaysid, waa inaad qabtaa kalsooni aad kula tartami kartid kuwa banaanka jooga, ama ha noqdaan dibadda ama ha noqdaan wadamo kale. yacni waa inuu ardaygu leeyahay confidence iyo kalsooni waa inuu isku qabaa, uusan cabsanaynin. waxyaabaha ugu weyn oo confidencega keenan waxaa kamid a ardaygu inuu awood u leeyahay inuu la xiriiri karo dunida kale. yacni luqada ingiliishkiisa waa inay fiican tahay, waana baska waxyaabaha baska noo ah ayay kamid tahay. waxyaabaha ugu waaweyn oo ilmaheena ka fiirinayna waxaa kamid a oo yacni aan samaynayno inaan waxbarasho quality la keeno. waxbarasho quality la inaan keeno iskuul kastoo furayo dabcan wuxuu leeyahay quality aan keenayna. so taas dadka dhan ay ka dhexaysaa, laakiin annaga waxaa jirta waxyaabaha aan samaynayno qualitygeena aan ku cabirayno, miisaanka aan saarayna cabirkeena qualityga waxaa kamid a 2 qaybood oo kala qaadayna, qaybta diiniga iyo qaybta maadiga. qaybta diiniga sidaa sheegnay waxaa jiri doona qur-aanka, waxaa jiri doona maadooyinka tarbiyada oo dhan ilmuhu qaadan doonaan. qaybta academiga qualityga waxyaabahan ku hubi doono waxaa kamid a ardayga dugsiga hoose dhexe markii uu ka baxo waxaan rabnaa in aan loo turjumaynin yacni maadooyinka uu qaadanayo. waa in luqada Englishka oo noqotay luqad caalami oo adduunka dhan ku wada xiriiro. dabcan adduunka inuu wada xiriiro laazim luqada loo baahnaa, luqada Englishka noqotay.
haddii kale adduunku waa kala xirxirmaa. haddii qolo kasta tiraahdo aniga tayada bisa ku hadlaa, adduunku wuu kala xirmaa. waa in la helaa luqad u dhexaysa dadka oo lagu wada xiriiro, waa English. aniga ardaygeena waxaan rabnaa markuu primary ka baxo iyo high schoolkeena inuusan u baahnayn inuu iskuul luqad u aado, English ama ha noqoto ama maadooyinka kale ha noqdaan, inuusan iskuul u aadinin sida adduunku uu yahay oo kale. waxaan rabnaa wax walba oo academic la xiriira, hadday noqoto English, xisaab iyo waxyaabahaas oo dhan, ardayga inuusan u baahanin in la dhiso oo uu aado iskuulaad kale sida iskuulaadkan privateeda u naqaano. quality waxyaabaha ku cabirayna ka mid tahay. number 2, akhlaaqda caruurta ayagana aada uga dadaalaynaa. waxaana ku dhisan core valueskeena ama waxyaabaha noogu weyn qiimaha iskuulkeena xarunteena Nairobi, maadaama ay joogaan dhul aan ahayn yacni dhul akhlaaqdiisu ee aada u sareyso. marka isla halkaana disciplineka iyo akhlaaqda ilmuhu waxay noo yihiin valuega inoogu sareeyo. sidoo kale ilmaha securitygoodana waa ka hadlay oo aan sameynay yacni security cameras iyo sidoo kale wax kastoo lagula socon karo ilmaha akhlaaqdooda. waxaan kaloo ka dadaalnay oo u sameynay dad qaasa nadaafadda, hadday ahaan lahayd musqulaha, kalaasyada iyo meelahaas oo dhan, xafiisyada. waxaan u sameynay yacni dad oo ka shaqeeya qaybtaas noo qaabisha. ugu dambeyntii maxaa uga duwanna iskuulaadka kale? dabcan iskuul markaa furaysid ama ganacsi aad bilaabaysid wuxuu raba ha noqdee, maxaad kaga duwan tahay kuwa jira? ila iskuulaad way furan yihiin muqdisho, iskuulaad badanaa furan, jaamacadaa furan, annagana iskuulaan keena. maxaa uga duwannahay oo aad ku dooran kartaa Royal Muslim Primary School? waxyaabaha aan ugu dooran kartin waxaa ka mid ah macalimiinta aan qaadanayno. macalimiin oo keliya ma ahan, laakiin waa macalimiin tababaran, trained teachers waxa la yidhaha. way tababaran yihiin, yacni waxay soo mareen after waxbarashadoodii, waxay galeen training college, yacni ayagaa lasoo tababaray sida ilmaha ula macaamil lahaayeen loo tababaray. laba qaybood ay u qaybsan yihiin. waa qaybta la yidhaahda ECD-da oo ah ilmaha yaryar macalimiin u tababaran, waa pre-schoolinka, baby class, nursery iyo pre-unit ilmo macalimiin u tababaran, iyo macalimiinta u tababaran primary-ga oo class 1 ilaa class 8 oo la dhaho P1 teachers. so labadaas macalimiin unbaa qaadanayna. haddaan macalimiin qaadanayno, waalidkuna nagula xisaabtami karaan. waa inuu yahay trained teacher oo wato shahaado cadaynaysa inuu yahay macalin tababaran, eeda ECD inuu u tababaran yahay oo ilmaha yaryar, ama uu u tababaran yahay P1. so waxaan kaga duwannahay waa labadaas iskuulaadka kale. aad ayaan kugu mahad celinayaa. waqti waa iska soo koobaynaa, adinka sidaa noo soo ajiibteen. thank you very much.